doorka nabadda aan ka geysan karo waa door weyn waxaan ahay qof ku dhaxnool bulshadii haddaan dhalinyaro marka qaabkaan ka geysan karo kol aan dad wacyi geliyo kol barnaamij oo shabyo loo sameeyo dadka barnaamijyo badan ayaa lagu wacyi gelin karaa oo horumarka iyo nabadda loo geysan karo ayadoo culimo loo xilsaari karo dhalinyaro iskaashato loo xilsaari karo waxyaabo badan ayaa nabadda lagu soo celin karaa marka innaguna waxaan nahay dad aad ugu baahan nabadda nabadda iyo horumarka Soomaaliya waxaa laga geysan karaa in la horumariyo waxbarashada waddan kasta oo horumar waxaa horumariya dhalinyaradiisa waxbarashada wax badan ay zaaidisaa haddii wax la barto waddanka horumarkiisa dhaqaalihiisa nabadiisa wax kasta wuu horumarayaa haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorka nabad iyo horumarka aan ka geysan karno waxa koow ka ah dib u heshiisiinta iyo doorka siyaasadda oo qayb fiican aan ka leeyahay runtii dhalinyarada wax badan oo muhiim ah oo door ay ka qaadan karaan nabadda waa haddii la tixgeliyo kaalintooda lana siiyo meel ay ku sameeyaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo aqoontooda iyo xooggooda ay ku muujiyaan haddii ay helaan waxaan aaminsanahay inay wax badan ka bedeli karaan nabadda iyo xasiloonida dalka Soomaaliya waxay tahay haddaan nahay dhalinyaro doorka iyo nabadda aan ka geysan karno Soomaaliya in aan sameeyno anagoo dhalinyaro ahaan awareness aan u qabanayno bulshada taasoo noo geenayno meelaha iskuulada inta badan goobaha ay iskugu imaadaan dhalinyarada maxaa la jiray caqligeeda maxaa la jiray si fiican u buuxsamin inaan u wacyi gelino nabadda faa'iidada leedahay misana aan u sheegno dagaalada iyo dhibaatada ay leeyihiin dhammaan meelin baahan anti Soomaali guud ahaan dhalinyarada ku qaadan aragti fayla siyaasadda dib u heshiisiinta iyo horumarada dhinacyada kala duwan taabadaas saas darteed dhalinyarada meelada isbedel sameey karaan nabadda iyo horumarka Soomaaliya doorka ay ka geysan kara waxay tahay in aan waddan ku sameeyno dib u dhis waayo waddanku waa burbursan wuxuu soo maray dagaalo fara badan iyo burbur baan ayuu la kulmay waddanka runtii aniga ahaantiida maanta anoo kamid ah dhalinyarada maanta kamid ah ku nool gobolka Banaadir kamid ah dhalinyarada ka qayb qaata maaragtay activity-ga dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo aad u jecel inaan maalin kasta ka qayb qaato dhanka nabadeynta bulshada dhexdeeda iyo horumarka runtii waxaan dhihi karaa door aad iyo aad u muuqdo ayaan ku sameyn karaa haddii laakiin aan helo wax igu taageera caqabadda ugu weyn oo dhalinyarada haysta waxa ay tahay waxaynan haysan cid ay ku daydaan maxaa yeelay dadkii oo dhan waxay inta badan ka qayb galeen dhibaatada dalka ka dhacday taa ayaa waxaad moodaa inay dhalinyarada u tusayso inay waddo qaldan ah waxaana muhiim ah si dhalinyarada xooggooda looga faa'iidaysto in ay helaan dad wanaag ay kaga daya karaan iyagana wanaagga lagu toosiyo isla markaana la siiyo meel ay ku muujin karaan awooddooda dadnimo iyo kartidooda